iyadoo marba marka ka dambaysa ay cirka isku sii shareerayso xiisadda Ruushku ka hurunaya xadka uu la wadaagay Ukraine. dowladaha reer galbeedkuna ay soo saarayaan baaqiyo iyo dhaleecayno kana dhaqyada Raashka. waxa arrintaasi gaas ku sii shubay madaxweyne Vladimir Putin ka dalkaasi, isagoo oo dowladaha ku canaananaya joojinta xiisadda xadka Ukraine ku canaantay inay tallaabo cawaaqib xumo ka dhaxli karaan ama kala kulmi doonaan Ruushka haddii ay ka soo tallaabaan khadka cas ee ixtiraamka iyo dulqaadka Raashka. waa sida uu yiri Putin oo ka jeediyay hadalka khudbadiisa sanadlaha waxa uu sheegay in dowladda Ruushku xaq u leedahay in ay meesha walba oo iyadu damacdo ay geynayso ciidamadeeda, taas oo aysan jirin cid u yeerin karta. waxaana uu dowladaha galbeedka ee ka hadlay dhaqyada ciidan ee xadka Ukraine ku eedeeyay inay faragelin qaawan ku sameynayaan howlaha amniga Ruushka. Maraykanka iyo dowlado kale oo xulafadiisa ah ayuu Vladimir Putin ugu baaqay inuu dib ula soo baxo ciidamada Ruushka ee lagu daabulay xuduudda labada dal. hase yeeshee Putin oo arrinta ka hadlaya waxa uu yiri ma jirto cid ku dhiiran karta inay ka soo tallaabto khadka cas ee Ruushka. tallaabo kasta waynu la soconnaa, halka ay ku aadan tahay ayaynu kula macaamili doonaa. kuwa abaabulaya daandaansigu waxa ay ku xadgudbayaan xaqa asaasiga ee Ruushka iyo arrimaheena ammaan ee khaaska ah. waxaynu taas kala kulmi doonaan xumaan aan nooceeda hore u dhicin, ayuu yiri Vladimir Putin ka Ruushka hogaamiya. aqalka looga taliya dalka Ruushku waxa uu dowladaha reer galbeedka hore ugu sheegay inaysan jirin wax abaabul dagaal ah oo haatan Moscow diyaar u tahay. taas beddelkeeda si caadi ah ciidamadeeda ay ugu daadgureeyeen qayb ka mid ah xuduudahooda gudaha, balse waxaysan meesha ka saarin in haddii Ukraine ay faragelisay deegaanada ay haystaan fallaagadu ee bariga Ukraine, Ruushka isaga lagu khasbi doono inuu tallaabo qaado si uu u badbaadiyo muwaadiniinta Ruushka u dhalatay ee halkaasi ku sugan. Putin arrintaasi waxa isagoo ka hadlaya mar kale uu yiri dhabtii ma doonayno inaan gubno buundooyinka oo dhan, balse haddii cidi khalad u fahanta dareenkeenna fiican iyo amaba khadadka u dhaca sida dabiiciga ah, waxay soconaysaa inaan gudubno oo aan jiirno buundooyinka lafahaantooda. jawaabteennu waxa ay noqon doontaa mid degdeg ah oo adag. Putin ayaa dhinaca kale ka hadlay dhismaha cusub ee dhinaca hubka ee Ruushku ku howlan yahay. wuxuu sheegay in dowladdiisu ay sii wadayso dib u casriyeynta hubkeeda nukleerka, gaar ahaan wuxuu sheegay inay sii xoojin doonaan hubka casriga ah ee militariga, si gaara gantaalada nukleerka ee qumaatiga u kaca oo dhismahooda ay sii laba jibaari doonaan. docda kale, isagoo aan dowlad gaara carabka ku dhufan ayuu hogaamiyaha Ruushku cambaarayn u jeediyey dowlad ajnabi oo uu sheegay inay dalkiisa saarayso cunaqabatayn dhaqaale oo aan sharci ahayn, taa oo dana siyaasadeed laga leeyahay, isla markaana la doonayo in lagu fuliyo rabitaanka dad kale. falanqeeyaasha ayaa dowladda uu Putin cambaaraynta u jeediyay ku sifeeyay Maraykanka oo toddobaadkii u dambeeyay sheegtay in uu Ruushku ku ciqaabi doonaan faragelintii maamulkaasi uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee dhacday sanadkii 2020 iyo ku lug lahaanshaha jabsashada xogaha khaaska u ah Washington. maamulka Joe Biden waxa uu amar ku bixiyay in la eriyo 10 diblomaasi oo Ruush ah, sidoo kale xayiraad lagu soo rogo shirkado iyo shakhsiyaad Raash ah, isla markaana xayiraad lagu soo rogi doono awoodda Ruushka ee amaahda. Putin oo arrinta kaga hadlay khudbadiisii Arbacadii ayaa yiri Ruushku waxa uu haystaa mar walba dana isaga khaas u ah, kuwa oo aynu ku difaacayna danaheena iyo shuruucda caalamiga ah. haddiise ay jirto ciddii dan fahamka aragtidaasi suuban ee iyadu doorato jid kale oo isla weyni iyo kale ahaansho ah, mar walba Ruushku isagu waxa uu haystaa dariiq uu ku fiicnaado booskiisa, horeyna ugu sii wado horumarkiisa. inkastoo uu si adag uga hadlay danaha siyaasadeed ee dowladaha shisheeye ka leeyihiin dalkiisa Putin iyo cambaaraynta loo soo jeediyay dhaqaaqa ciidan ee xadka Ukraine, haddana Vladimir Putin waxa uu inta badan khudbadiisa sanadlaha ah diiradda ku saaray arrimaha gudaha dalkiisa, gaar ahaanna sida dowladdiisu uga falcelisay caabuqa COVID-19 oo uu sheegay inuu si degdeg ah ugu howlan yihiin horumarinta 3 noon oo tallaalka koronaha ah, kuwa oo hirgelintooda ay fududeysay horumarka dalkaasi uu ka sameeyay dhinaca tiknoolajiyadda iyo warshadaha horumarka ah. Or law enforcement